waxay ku dhahday ilmaha markay dhintaan isguursanayna. Waxay kaloo u sii raacisay horta ilmaha ma dishid laba goor soo dili lahayn dee iska dil si aan labadeen u midoowno nolol cusub u samaysano qoys u samaysano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiibadan qiimaha badan ku soo dhawaada channelka Master Tifo ee YouTube. Barnaamijkana maanta wuxuu ku saabsan yahay qiso runtii ilaa ay xad yaab badan oo markii aad maqasho laga yaabo inaad dhahdabo sidee waxaan ku dhacay macquul maaha. bal intaan u gudagelin barnaamijka like saara videoga subscribe na saara channelka hamigeena ugu horeeya waa inaan gaarnaa 1000 subscribe. anagana waa dadaalaynaa barnaamij fiican idiin soo gudbinaynaa markan inoo bilaaba. qisada aan maanta idiin wado waxay ka dhacday dhulweynaha waddanka China, waxayna qisadan oo dhan ku gidaaman tahay ninka odayga u jeeda. ninkan qisadan ay ku saabsan tahay waxaa lagu magacaabaa Zhang Po. Zhang wuxuu ku barbaaray waxna ku bartay isla magaaladii uu ku dhashay, magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu bulshada badan waddanka Shiinaha. markii uu gaaray heerka waxbarasho ee jaamacadeed wuxuu ku biiray mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn waddanka Shiinaha, wuxuuna ka bartay cilmiga injineeriyadda. kadib markuu jaamacadda dhameeyey shaqana uu helay, wuxuu go'aansaday inuu guursado. laakiin ninkan hal baa haystay intuu waxbarashadu waday ma lahayn gabar saaxiib ah. marka waalidiintiisa waxay go'aansadeen marka inay u dhisaan gabar qaraabada ah. gabadhii qaraabada loo dhisay, laakiin muddo kadib noloshooda waxaa hareeyay buuq iyo isqabqabsi iyo dagaal badan. iyagoo sidaas ku jira ayay waxay isu dhaleen gabar iyo wiil. kadibna ninkan wuxuu go'aansaday inuu xaaskiisa khiyaano, wuxuuna si qarsoodi ah ula saaxiibay gabar beesha iskala shaqeeyaan oo lagu magacaabo gabadhan oo lagu magacaabo Ye. xaaskiisa markay ogaatay marka ninkan khiyaanadiisa oo khiyaano markay ogaatay, buuqiyaa sii batay. maxkamaday tagtay, kadibna maxkamadda kala furtay labadooda. kadib maxkamadda waxay go'aamisay maadaama labada cunug ay u baahan yihiin xanaano iyo korin, waxaa loo go'aamiyey marka in maxay ahayday gabadha hooyadeed la siiyo, wiilkan uu aabihiis la joogo ilaa uu ka gaarayo 6 sano. saasaa lagu heshiiyey, maxkamadda ay go'aamisay, labadoodana waxay kala mareen laba wado, saasayna kula tageen. laakiin Mr. Zhang wuxuu dacwad ku furay xaaskiisii hore isagoo ku eedeynayo, wuxuuna ku doodaa in gabadhan aysan nolol u haynin ilmaha, waxbarashadooda iyo noloshooda aysan bixin karin. kadib maxkamadda waxay go'aan ku gaartayba in labada cunug lagu wareejiyo aabahooda isaga uu korsado, mas-uuliyaddooda uu qaado. Zhang markuu la soo wareegay labada cunug wuxuu isoo cararaha u keenay saaxiibtiisa cusub Ye, laakiin wuxuu kala kulmay diidmo inaba aan caadi ahayn, marnaba uusan ka filinin. Ye waxay u cadaysay Zhang in ilmahan aysan hooy u noqoninin, diyaarna aysan u ahayn inay gurigan ku noolaadaan. waxayna u sheegtay inay qaadanayso amarka waalidkeed, waalidiinteedana ay sidaas ku dhaheen. kadib Zhang xaaladda ku xumaatay, wuxuuna garan waayay waxa uu sameeyay maadaama ilmihiisana uu rabo gabadhan cusubna uu aad u jecel yahay. dood dheer kadib, Ye waxay go'aansatay marka inay guriga u banayso ninkan Zhang ah iyo carruurtiisa, waxayna aaday guriga waalidiinteeda. muddo kadib Zhang wuxuu isku dayay saaxiibtiisa inuu raali geliyo taleefano badan oo ka waco. marka maalin waxaa dhacday in isagoo kala hadlayo video call iskuna dayaya inuu raali geliyo in ay qashay ama ay iska qashay gacanteeda. qoftaa marka arrintan wax kale ma u sameynin, waxa u samaysay marka si ay u muujiso inaysan raali ka noqon doonin weligeed in carruurtan ay guriga iyada ku noolaadaan. kadib ninkan waa waxaan aqabo carruurtii isaga ag taagneed oo meesha fadhisay isagoo dhalay gabadhii wiilkii inta qabtay oo labadooda waxuu ka tuuray baalkoonka dabaqa sare, weliba fooqa ama biyaanada 15aad oo carruurta la saarnaa meeshuu kasoo tuuray. gabadhii yareedna meesha ku dhimatay, halka wiilkii yaraana uu ku dhintay isbitaalka. kadib Zhang wuxuu kasoo degay dabaqa isagoo riwaayad jilaayo oo dadka iska dhigaya nin aabo carruurtiisa waaye oo kale. wuxuu bilaabay inuu derbiga madax ku garaacdo, qayliyo, ooyo. sawirkan wuxuu ka mid yahay sawirada laga qaaday markuu soo degay oo dabaqa soo degay oo dadka carruurta u soo gurmatay oo istusayay. marka wuxuu bilaabay inuu riwaayad jilo madax derbiga ku garaacdo, kadibna waxaa dadku u sheegay in carruurtan iyaga ay kasoo dhaceen dabaqa
baaritaan markii la sameeyey marka oo kaamirooyinkii ku hareersanaa dhismooyinkii dabaqyada ku hareersanaa markii la daawaday baaritaan la sameeyey waxaa caddaatay ninkan in isaga uu kasoo tuuray carruurtiisa dabaqa. Muddo kadibna waa lasoo xiray. Laakiin Zhang wuxuu booliisku u caddeeyey in arrintan uusan keligii ku ahayn ay kula jirtay saaxiibtiisa Ye. Yena sidoo kale waa lasoo xiray. Labadoodana maalmo dhoweeda waxaa lasoo saaray maxkamadda. Ye waxay ku dooday marka inaysan waxaan shaqo ku lahayn ay beri ka tahay dembigan. Laakiin waxaa ku caddaatay in saaxiibkeeda Zhang ay ku cadaadisay ay ku qasabtay inuu carruurtiisa dilo iska fogeeyo. sidaa daraaddeed labadooda waxaa lagu xukumay dil toogasho ah. Haddana waa xukun sugayaal waaye. barnaamijkeena halkaas kusoo gabagabaynaynaa. Haddii aad ka heshay muuqaalka like saar, subscribe saar channelka si aan u soo badino dhacdooyinka noocan oo kale ah. Mahadsanid.